aragada waa noo ashbirkeena aqoonso horta warkaad waa ka soo horreeyay waana ku naqaan inkastoo aan ku arkin qorqor madaxweyne qorqor waa ku naqaan marka waa ku soo salaanta naga gudoon salaanta inaan gudoon ta ka rabna inta hadda ka soo gudbo waxaan noo dheer hadiyad baa kugu wadnaa reel loo bag hadiyad bay ku soo qaadeen kugu soo salaameen kugu socdaan inaan naga gudoon hadiyadaas midna meeshaan taalla midna waxay jarjartay taagantay inaan naga gudootid nagu mataqaan sharaftid naga qabatid naga qaadid intaas baan warka uga dhawaaday gudoomiyaha iyo sheekha aan warka ka soo uga baxay inuu reel loo bogaana dadka waxaan ugu duceynaa diinta ilaahay baan soo ugu duceynaa wixii kala cod aan heli karna waa ugu darnaa 14 iyo 100 todobadaas jaamac oo halkaas taala adan kugu salaamo inaa wahadiye naga gudooto meeshan xoolaha ku xiran adiga hadiye aan kugu keenay oo in martiqaad ciidankaada waxa cunto maada waayeen dad baan wada taade inaan ku martiqaad arabnaa intaasaan anagu ku wadnaa warkuna waa naga leeyahay hay'adaha inaan naga gudoontid baahida iyo wax aan qabnana hadda waxa la tahay hadda noo taa waa nadira farka dhanka taadin iyada soo waxda nooga dhiga tiraahid labadaba meesha aad waa noogu talisid ilaahay noogu taliyay naga baashi sheekh loo bagay faqa Umar suldaankii noogu weynaa dumar hadlay nabadoonkina hadlay nooma harin waxaan kugu wareejinay jaamacadaas 7 jaamac weey waa diintu dadku haduu ku sharafo waa inuu cid walba waxay ku sharafowda ay isku sharafayda sharaftaas baan kugu casuumnay codsigaas waxaan noo daba yeelanaa hal codsi bis intaas aan kugu casuumnay oo kale inaan maanta cawada nugu casuumta baan rabnaayo albaabka inta noo istaagto aan sooriyadii aan wadnana gacanta kugu galino wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum bismillah alhamdulillah salatu wa salaam ala rasuulillah gudoomiyaha xildhibaanka suldaanka salaadiinta kale iyo nabadoonnada iyo khiyaarta culamaa diinka dhalinyarada dhammaan inta lagu joogo lagu yimid munaasabadan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib oo mahadcelinayaa beesha sida sharafta badan maxabada iyo walaalnimada leh hadiyada iyo deeqda la igu keenay la ii soo hadiyay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan ka cudur daaranayaa hawl badan oo ku jiray darteed haddii aanan ku talagal iyo diyaarsanaan aan la igu imaan runtii beeshu dad culama diin ah lagu yaqaan dacwada iyo diinta fidinteeda weeye waxa lagu qeyr badnaa ama ugu qiimo badnaa aakhiro iyo adduun na waa iga soo hadiyeeyeen oo hatta xoolo iyo hadda ka qaalisan waa idinka gudoomay Allah idin sharfo hadiyadii aan hadiyadii ka qaalisanayn oo wax la isu hadiyeeyay ugu qiimo badnaadna waa idinka gudoomay midii maalka ahayd oo aad keenteenna waa idinka gudoomay xaajooyinkeena kale iyo adduunyadeena kale iyo hawlaheena kalena sida aad raalli ku tihiin ayaan yeelayaa haddii aad tiraahdaan hadda inaan galnana waqti waa isu maneedo waaba isu nimid oo ilaahay baa mahadda maanteed iska leh noo qadaray inaan isu nimaadno oo kulankaan noo dhaco waa wada joognaa haddii aad tirahdaan waqti kalena u dhiganaynaana waa gelaynaa anoo mar labaad iyo mar saddexaad iin mahad celinaya hadiyadii iyo deeqdii qiimaha badneed ee aan runtii ana ilaa weyn ka mahad celinaya diyaar baan idin ahay sidaa ku talisaan haddii hadda la gelayo howlihii iyo kalimaadkii aan isdhihi lahayn iyo haddii dib loo gelayo oo waqti kale aan qabsanayno aad iyo aad baa mahadsan